Okay, I'm in Somaliland and you are in Ethiopia. Yeah. What do you think? And we're still talking to each other. Weird. Isn't that amazing? Yeah, very. Okay, so what's the difference? Because we're in Ethiopia. Okay. This is Ethiopia era, and that's Somaliland. And this is the mark. Yeah. Yeah, that's the border mark. That's the border mark that I'm in Somaliland and she's in Ethiopia. Ethiopia. Yeah, isn't that amazing? Yeah. Yeah. So you can tell your friends that you've been to Ethiopia as well, not only Somaliland. I've been in Ethiopia now. And what do you say to the Ethiopians? I'm in two different lands because now I'm in Somaliland and now I'm in Ethiopia. maya beerta magaca anagu bixina magaca waxa uu bixiyay wasiirka beeraha abihi geed carablo oo beertaas halka laga soo horjeeda laha iyo beertiisaasi Ethiopia markuu tagayo markuu halka tuur soo dhigo ayaa la qabsanayay waxa qabsanayay Ethiopia soo baqay waana beesado ayaan daranto waxaan ayaan ka darlay iska iibinaya buri saadaradeed ayaan darantaas aan ku ahayd tan xadku marayo waa la soo tonto kolka xadkan baa la soo dontay ayaan darantaas ahayd tan baa markaa la soo dontay oo markaa laba cashuurood baa laga qaadaa cashuuraha diniyo labada dhab laga qaadaa xagga Ethiopia laga qaadaa xagga Somaliland tan laga qaadaa laakiin aan laga qaaday faa'iidadan ku hayna ka badan okay dhinaca ku faa'iido badan dhinaca Ethiopia mise dhinaca Somaliland dhinaca Somaliland bay faa'iido badan ku faa'iido badan dhinaca Somaliland xor baan ku hay waa xurriyad qaali aadiya oo iyadu dawlad waxa weeye Somaliland waa dimuqraadi Somaliland waa dimuqraadi waxay ku waa international laakiin Ethiopia macna yar waxa ku jira yar macna yar cadaad soo dadkii oo iyagu isku ogoleen inay moogtahay dawlad deegaanku maaha dal gooni weeye in lagu beestay amisay kolka iyagoo dacbur yar ku jirto saadirteeda anagu halkan xor baan ka nahay anagu walba bar cashuurkii baa qaalisan Ethiopia qaalisan farq intee leeg baa u dhaxeeya iskuma dhawa Ethiopia iyadu sanadkii sanad walba way qaadaa laakiin Somaliland adu waa mar sanadkiiba adu labada sano mar bal qaada oo Somaliland taa ka fudud waa sax waan gartay waxaad sheegtay siyaad baraa wadada soo maray oo markaas ereyadu yiri balaad dib igu celi siyaad baraa waxa ka yimi siyaad baraa isagoo berigi gobolka aawada la bixinay markii afar isteetki iyo markii aawada la bixinay buu soo maray kolka haruub iyo rabbi ka baxday wixii baa la siiyay markaas la beertan yaan daran baa markaas uu wartanimo ayaan darnay waa yaan badan kor hadii labadii dhanba wax ka qaadanayso waa beerayaan badan buu kolka ayaan badan baa imika la yaan darantii waa laga day saas markaa ayaan badan lagu aad iyo aad baad maasantay hayo walaadina daawadayaal maxay beertan magacaas loo yaqaana ayaan daran baa la dhahdaa laakiin Cabdi Fataax hadda sidoo noo sheegay magaca rasmiga ah waa ayaan badan beertan maxay dushan iga tustoonaa insha Allah muuqaalkana si fiican ula socdo fiidiyoogana like gareeya subscribe kana noo saar aad baad maasantiin daawadayaal ninka imkaan wareysanay Cabdi Fataax baa la dhahdaa wuxuu ka cudur daartay in maxay kamarada lagu qabto marka imika waxaan joognaa xadkii beerta ayaan joognaa maxay codkiisa maqashiin karnaa oo kaliya taa maxay dhinacan imkaan jooga maxay beerta waxay dhinacii Ethiopia dhinacaasna waa dhinacii Somaliland weeyaan sidoo noo sheegayna dhinaca Somaliland baa u faa'iido badan maxay uguna cashuur yar uguna xorriyad badan sidoo noo codkiisa ugu maqli doontaanba marka daawadayaal aad baad maasantiin beerta ayaan dushan iga tustoonaa imika magaca rasmiga la yiraahdaana ayaan daran maaha waa ayaan badan subaxdii markuu roob ku doo mayaygu raadeeyo reexaan udgooniyo adoo rucub ka soo toosay dhulka oo tiga dirax tiri raarka sare joogto oo jaanta aad rogo tidhaa raysku daba yaallo quruxdooda buuraha rakada ubaxu rooshaamo qoraxdana daruur lagu rakibay raranka ka dahday buurama inay raaxataa laysku wada raaciye riyo waxaanu haysto qalbigu ila riyaaqaba inaan joogo rugihii cilmiga runi ideeqsiisay subaxdii markuu roob ku doo mayaygu raadeeyo
reexaan udgooniyo adoor rucub ka soo toosay dhulka oo tiga diirax tiri raarka sare joogto oo janta aad rogo tira raysku daba yaallo quruxdooda buuraha rakada ubaxu rooshaamo qoraxdana daruur lagu rakibay raranka ka dahday Boorama hoteelka weyn ee caanka ay ku tahay magaalada Boorama ayaan joognaa waxaan maxaad hoteelkan cabaar baan ku yara qaadanaa waqti waan ka yara sharaabanaa insha Allah nala socdaan hoteelka gudihiisa mar dhow tolo galina haduu leeyahay And också idag ska vi se kameler och massa grejer. Today we went to a lot of places. We went to farms. We went to beautiful places and we saw animals. We saw cows. We saw chicken. And we also saw 2 turtles. We saw a big turtle that was a dad turtle. And we also saw like 1 or 2 times smaller turtle that is like a mom. Yeah, and right now we are in a beautiful place with some... Now we are in a beautiful hotel, and there's a lot of people that love here, and there's even playgrounds here, and it's my first time coming here. So stay tuned with us, like, share, subscribe. See you next time, guys. Don't forget to like, share, and subscribe. markuu roobku doo ee mayigu raadeeyo reexaan udgooniyo adoor rucub ka soo toosay dhulka oo tiga diirax tiri raarka sare joogto oo janta aad rogo tira raysku daba yaallo quruxdooda buuraha rakada ubaxu rooshaamo qoraxdana daruur lagu rakibay raranka ka dahday Boorama alla Boorama inay raaxataa laysku wada raaciye riyo waxaanu haysto qalbigu ila riyaaqaba inaan joogo rugihii cilmiga runi ideeqsiisay haddaan reer dhismiyo raas la wada taagin salaamina waxaan joognaa hoteelka Safari Hotel hadda gaadhigan yar oo la kareysto oo hoteelka ku dhex yaala oo la dhaahdo golf car ayaan saaranahay hoteelkan igu soo wareejin doonaa ninkan darawalka gaadhiga saarana su'aalan ka weydiin doonaa insha Allah hoteelka maanta hoteelku si uu yar mashquul yahay maxaa maanta jira horta samarka oo dhan baa sida waa mashquul horta hoteelku laakiin waxa jira maanta qurbo jooga ayaa xaflad ku qabsaday oo dawladdu u qabatay marka saasa jaam uga sii dhigtay laakiin caadi ahaan hoteelku waa jaam boort samarka samar baan ku jirnaa hoteelku imisa qaybood buu ka kooban yahay qaybo caruur ay jirtaan maqlay oo ay ku ciyaaraan bal hadda qaybaha ku kooban yahay noo sheeg qaybo aad u badan buu leeyahay hotel ma aha waa resort baa la yiraahdaa sax uu dhameystiran yahay hoteelku waa magaalo ku dhex taalo la yiraahdaa Safari dad albaabka ka soo gashay geedka waxaad waayay horta ma jirto wax walba waad helaysaa qaybtii playground-ku aad u weyn qaybihii la seexanayay gymtii swimming poolkii jacuzzi buu leeyahay steam buu leeyahay garoonkii kubadda cagta uu leeyahay wax aanan magaalo markaad tagtaad uga baahanayso hoteelka ka helaysaa hoteelku dhulka uu ku fadhiyo dhul intee lag buu ku fadhiyaa horta dhul aad u ballaaran buu ku fadhiyaa caadi ahaan halkan waxay ahaan jirtay Safari Boorama ay ahaan jirtay wallahi dhulku horta ku fadhiyo dhul aad u ballaaran laakiin cabirhaantiisa tiradiisa horta ma garanayo laakiin cabir aad ugu badan buu ku fadhiyaa waxaan arkay maxay meelahan ice skating ee ciyaalku ku ciyaaraan meeshu ma furantay imka skate ku furan yahay playground-ku oo dhan uu furan yahay xilli dadka hadda hoteelka degan yihiin oo kale service-ku uu raacsan yahay oo bilaash iyaga playground-ka qayb baa u bilaasha qaybna waa la charge kareeyaa qaybaha la charge kareeyo qaybaha ka mid ah maxaa qasal lagu qabtaa
qaybaha la charge gareeyo waxa weeyaan qaybaha electronic ku shaqeeyo dhan qayb waxa jirta aan electronic ku shaqeyn qaybta waxa la siiyay dadka hotelka dega maxaa hotelka mise qol buu ka kooban yahay habeenkiina mise lagu seexdaa horta hotelku wuxuu ka kooban yahay qayb guest house oo qaybta ninka soo jeedkeena ka muuqata oo 16 guriya 16 ka guri waxa iskaga mid yihiin waa madbakh iyo fadhiga mid kasta oo madbakh iyo fadhigu leeyahay laakiin qolalkii ku kala duwan yihiin fiilawan oo kale waxa weeyaan hal qol madbakhiisi iyo fadhigiisi waa 120 per night fiilatu waxa weeyaan laba qol madbakhiisi iyo fadhigiisi waa 170 per night iyo ka ugu dambeeya ah fiilatri saddex qol madbakhi iyo fadhigiisi marka waa guriyaasha magaalada ku yaala hotelka ku dhex yaala oo service-kiina u raacsan yihiin qaybta fooqa markaan tagno qaybta waa guest house-yadii fooq waxa weeyaan waxay ku kala duwan yihiin view-ga qolal waxaa jira connection oo albaabka dhexda la iskaga galayo family-gu galaan kuwa view-ga leh oo magaalada eegaya kuwa aan view-ga lahayn oo halka dambe eegaya oo price-koodu kala duwan yahay kuwa qolalka ay sheeg hotelka la degay view-ga labada qof waxa lagu galaa $80 markuu view-ga leeyahay markuu aduuna view lahayn $70 baa lagu galaa marka waa ka hotel magaalada eegaya imika intaas waa inta guest house-ka marka intaas weeyaan intaan ku sheegay waa guest house iyadii oo halkan aan ka dhamaanay weeyaan fooqna waa ka gaar isagu laakiin hotelka waxa jira qolal caadi ah hotelka oo qol hotel aad kiraysanaysid Soomaaliya way jiraan qolal single jira oo 60 lagu kireeyo view aan lahayn haduu view-ga leeyahay single waa $70 oo fooqi ku wada yaalaan floor iyo floor 3 floor ka ugu qaalisan saddexdii kalabaad iyo ka koobaadna waa isku price halkiiba imika ku horeynaayo imika ku soconaa qaybtan aan marayna waxa weeyaan qaybtii mandigi waxa weeyaan dhayladii dhameyska tirnayd oo halkan inaga beegan oo khamiista aan official u furi doono dhaylada qofka markuu dalbado kale maalinka horba ama si dalbada dhayladii dhameystiran baa qofka la soo hordhigaa meeshu doonaa ka gala markaa imika tusaale ahaan 10kayga qof ee wada socda haddaan doonayno hotelkan aan ka qadayno kale maxay tusaale ahaan noqonaysaa horta hotelka qayb waxay jirta barayfada family-giina haduu baahan yahay meel barayfada in loo siiyo laba buurood baa jiro dadka la geliyo u gaara oo hotelka raacsan oo Safari Hills la yiraahdo Safari Hills waa ama qofku de cuntadiisa lagu keenay isagoo AC-giina kuugu yaalo oo nad kuleel aynaynu arkin ayaa qofkii cuntadiisa lagu diyaarinayaa ama qofka haduu doonayo inuu loobiga ka qadeeyo loobigu ka qadin karaya oo loogu talagalay marka family-ga duu baahan yahay qado buurahana waa la geeyaa labada buurood ee soo jeedkiinaya waa gaar baa loo bookin kareystaa oo qadooyinka cashooyinka wax walbaba gaar baa loogu qabtaa waxaana dheer qofku markuu galo buurta dusheeda inuu hotelka view-giisa oo dhan arko waayo dhulkii ka dalacsan yihiin qaybtan soo jeedkeenu waxa weeyaan qaybtii stadiumkii kubadda cagta halkan soo jeedkiinu different ways baa loo isticmaalaa marna saad imika arkaysaan xafladaha lagu qabsadaa oo 1000 qof ay qaadaa insha Allah marna waxa loogu talagalay in kubadda cagta lagu ciyaaro garoonka iyo restaurant isku jira oo isku jira 1000 qof uu qaadaa qaybtan bidixdiina naga qabanaysa saddex baak baa jira hotelka tan waa tii koobaad iyadu labada kale waxay kaga duwan tahay stage bay leedahay iyadu stage kaasa sanadkiiba hal marba acrobatic festival la qabtaa festivalkaas imika khamiistii hore iyo jimcihii horena dhaafay ayaa halkan lagu qabtay dadkuna intan bi fadhiisanayeen marka sanad walba hal mar baa la qabtaa baarkii koobaad weyn oo stage-ku isagu leeyahay bidixdiina waxay naga xiga waa dam weeyaan damkan waxa loogu talagalay biyaha roobku keenay daadadka magaalada ka soo baxa ayaa lagu qabtaa maasha Allah marka lagu qabto waxay ka qayb qaataan waraabinta dhirta oo dhan hotel resort-ka dhir badan baa ku taala marka dhirtaasi ka qayb qaataan waana safe ahaan oo deeyo waa loo fikirin weeyaan bal waxa nooga sheegtaa qiimaha uu hotelkan ugu fadhiyo maxay gobolka horta imika hotelku sanad ilaa sanad dib u dhisan yahay 6 sano uu socday sax 6 sano wixii socday waa inay wax fiican soo baxaan markaas dawaad arkaysaan oo iniga ka feedback bixin doona insha Allah hotelku de qayb weyn oo ku fadhiyaayo magaalada qayb buu haystaa waxa kale oo ku fiican yahay kale waxa weeyaan aroosyada waxa jira aruuska intuunan hoolka meerka galin oo kale labada buurood imika ku sheegay lahaa waa lagu qadin karaa waana lagu cashay karaa
caruusku waxa weeyaan qaybaha ku sii quraacdo oo culture waxa jira caruusku booramiyo Djibouti ba ayay ka jirtay caruusku intuunan hoolka meherka galin oo kale inuu cambaabur cuno marka cambaaburka qaybaha lagu cuno ayaa labada buurooda oo labada buurood caruusku ka cunaa quraacdiisa markaas la isagoo caloosh buuxiyo xaajiga meherina garab fadhiista marka shaqo abuur badanna waa ka sameeyeen malanaya maxaad u dhaako ha may aad iyo aad shaqaalo firfircoon baa jooga oo de customer-kana aad u raali gelinaya hotelkana de soo dhaweyntiisa halkaas baad ka arkaysaano qofka si walba qofka haduu la garanayo hadii la garanayo si baa loo wada wanaajiyaa oo qofka loo soo dhaweeyaa tiro shaqaalaha tiradoodu intee bay leegtaa iyo tirada shaqaalu aad bay u badan tahay laakiin tiro koob kuma hayo hadii laakiin aan gaskareeyo kale aan qiyaaso kale 200 way gaari karayaan horta marka la isku daro cookska iyo marka la isku daro shaqaalaha nadaafadda wax walba marka la isku daro ama way ka badan karayaan way gaarayaan 200 qaybtan halkiina waxa weyn greenhouse tamaandhada iyo basasha hotelka uga baxda oo hotelka waxa la is oran karayaa wax badan buu safe gareeyay imika biyihii aan soo dhaafno kale uu safe gareeyay halkan beertiina halkan buu ku leeyahay markay soo go'do kale waaba la isticmaalay kitchenka loo isticmaalaa qaybtan aan marayno waxa weeyaan qaybtii qofka haduu hotelka degan yahay room ku leeyahay hotelka inta waxba laga maqaado bilaash service-ka u raacsan tahay caruur haduu wato isaga haduu doonayo inuu ciyaaro labada dhinacba free ba looga qaadaa qofka uu macallin ciyaarayo haduu doonayo marka qaybtaas waa u free oo service-ka u raacsan tahay ma sha Allah halkan kale waa skating-kii weeyaan oo kabii sheegaga lahaa roller skating-kii waxa ciyaalku ku ciyaaraan halka uu furan yahay anytime ku ciyaar karayaan shaqaalihiina u joogan waa waxyaabaha free-ga marka qofku degan yahay skating-kii isagu free ma wala charge kareeyaa protection-kii baa u raacsan qofka haduu wax walba loogu xidhay protection-kii baa u raacsan qof tababaraya jooga oo shaqaalaha ku jira marka shaqaalaha firfircoon oo customer-ka u soo jeedana way joogan meesha aad baad ma Say hello to the camera. labadan qaybood waxa la isticmaalay kale waxa weeyaan qaybtii baarkii hore ee stage kale labadoodii kale iyagu stage male laakiin waxay leeyihiin kuraas la fadhiisto kuraasta sax loogu talagalo kale ciidadu markay qabowda 5 casarka ilaa habeenka kuraasta lama kala helo dadku waxay sameeyaan cashooyinka takeaway bay ku soo qaataan qaybahan bay iskaga cunaan leeydha macaan iskaga qaataan family-gu kale family-ga duu badan yahay kale family picnic leeyahay kale qaybahan baa lagu qabtaa caruurta happy birthday-ga kale decoration baa qaybahan lagu qabtaa labada dhinacba caruuskii caruusadu qaybaha sawiraanta ku galaan weeyaan marka labada xubnood ee hotelka ugu shaqada badan way labadan baakba qaybtan kale waa qaybtii food court-kii ee fast food-kii cuntadii yar ee fududeed baa laga helaa halkan waxaan kaloo halkan ku soo dari doonaa insha Allah farmasiigii iyo supermarket-kii halka hore aan ka dhigsano dhismihiisu socdo marka waxa loo baahan yahay qofku geedka markuu ka soo galay albaabka hotelka inuuna waxba waayinba oo wax walba uu helo insha Allah halkii gaariga parking-ka ma artay halkaas uu nagay markaa magacaaga muxuu شيبي سهيب سهيب برشون ان شاء الله احمد حسن الله الله